بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد walaalayaal mowduuca aan doonayo inaan ka hadlo wuxuu ku saabsan yahay fadliga tawxiidka iyo foolxumada shirkiga. sidaad ogtihiinba tawxiidka ku gaar iyo gooniyeelidda ilaahay cibaadada rabbinimada asmaadiisa iyo sifaadkiisa waa gunta iyo ujeedada abuurista unka iyo maqsadka na laga leeyahay. si loo hirgeliyo oo loo adkeeyo tawxiidka baana loo jideeyay cibaado kasta, haddii ay tahay salaad, soon, xaj, alla bari, xusidda ilaahay iyo wax la mida. haddaba tawxiidka waa qaayada weyn iyo hadafka qurxoon iyo qasadka diinta ee sare. wuxuu yidhi allah kor ahaye wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, oo uma aanu abuurin jinka iyo insiga waxaan ahayn inay caabudaan, yacni imideeyaan oo i baraxtiraan cibaadada. suuradda addaariyaad aayadda 56. tawxiidka awgii baana loo jideeyey salaada, oo loo faral yeelay zakada, oo laisugu waajibiyey soonka iyo xajka. tawxiidka baa loo dhisay kacbada shariifka ah uu kor u soo qaaday tiirarkooda ibraahim calayhi salaam, gacalkii raxmaanka, uuna ku saacidayey wiilkiisa ismaaciil calayhi salaam. beydkaa hore ee samano badan soo mareen isagoo dhismo taagan ah, ilaahay dhowray oo xafiday. waxaa isxigsaday facyo hadba u soo xajinaya iyagoo muslimiinta ku tartamaan soo gaaristiisa halka uu ku yaal. waxa uu ku taagan yahay tawxiidka, waxaana ah amni, khayr iyo barako. wuxuu yidhi allah waid bawa'na liibraahiima makaana albeyti an laa tushrika bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. suuradda alxaj aayadda 26. oo macnaheedu yahay oo xus markii aan tusnay ibraahim meesha beydka caagan kacbada maka ku taal, annagoo leh ha ii shariig yeelin waxba, oo u daahiri beydkayaga kuwa ku dawaafaya iyo kuwa u istaagaya salaada iyo kuwa rakuuca oo sajuuda. suuradda alxaj aayadda 26. wuxuu kaloo alla weyne jala wacalaa yidhi waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aaminan wajnubnii wabaniya an nacbuda alasnaam rabbi inahuna adlalna kahiira min annaas faman tabacanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim. suuradda ibraahim oo xus markii uu ibraahim yidhi rabbiyow ka yeel beledkan maka aamin nabad, oo naga fogee aniga iyo caruurtaydaba inaan caabudno sanamo. suuradda ibraahim aayadaha 35-36. haddiina uu nebi ibraahim calayhi salaam khaliilu raxmaan iyo imaamka xunafada uu allah ku sheegay inuu yahay ummad iyo qaaruun iska dhan keligii, oo uu ku imtixaanay kelmado uuna wada oofiyey oo ku burburiyey gacantiisa sanamada, haddii nebigaas suuban uu ka magan galay allah shirkiga isaga iyo ubadkiisaba oo ka baryay inuu ka dheereeyo, bal ka warrama qofkii ka sokeeya oo ka hooseeya heerar badan. miyuusan ka mudneen inuu aad uga baqo oo isaga ilaaliyo shirkiga oo ilaahay ka magan galo? wuxuu yidhi ibraahim ataymi oo yaa aamin ka ah belada, yacni shirkiga ibraahim kadib. haddaba waxaa ku waajiba qofka muslimka ah inuu macrifo iyo aqoon u yeesho tawxiidka iyo lidkiisaba oo shirkiga ah, si uu u ictiqaadsanaado inuu yahay baatil oo isaga jiro oo uga fogaado oo ka digtoonaado. addoonkana markuu allah ku manaysto tawxiidka, cilmi iyo camalba, waa inuu ka cabsado inay ka suusho nicmadaas weyn. xaqiiqda ka cabsashada shirkigana waa inuu qofku ilaahay ka magan galo oo cuskado oo ka baryo ka badqab shirkiga oo iska jira wadiiqooyinka shirkiga